daqiiqada yar oo kaliya ayaa kugu filan mudane ama marwo inaad dhagaysato shaqada aad ka qaadato mushaharka yar ee aad subaxii aado adiga oo dhibsanaya oo ka cagajiidaya waxay shaqo fiican la tahay kumanaan qof oo shaqo la'aan ah subax waliba raadiya meel ay ka shaqaystaan guriga aad muuqaalkiisa ku qanacsanayn ee aad degan tahay wuxuu riyo u yahay dad badan oo ku nool kaamanka iyo kuwa aanay haysan meel ay seexdaan biilka kula yar ee ninkaagu ku siiyo wuxuu miisaaniyad fiican la yahay kumanaan qoys oo habeenkii seexda iyagoo aana meel ku ogeyn quraacda horberitoole iyo masaakiin ay gaajada ku qasabtay inay tuugsadaan haweenayda aad nolosha wadaagtaan oo aad adigu ku qanacsanayn ogow waxay raaliye la tahay kumanaan nin oo mid weliba uu la nool yahay haweenay mixnad ah haddii aadan jeclaysan cunnada laga kariyo xaafadaada oo aad maqaayad ka doonato mid aad cunto ogow dad baa qashinqubka ka raadiya qood haddii aad ka cabanayso dhirirka waddada aad ku lugaynayso ogow dad ayaanan lahayn lugo ay ku socdaan haddii aad dhegaysanayso adigoo caafimaad qaba waxaad ka nasiib badan tahay malaayiin qof oo aan lahayn wax dhagaah ama waxna aanan maqlin haddii aad saaka caafimaad ku soo toostay oo weliba gurigiina ama midka kiladiisa aad awooddo ka soo kacday ogow waa nimco aad dheer tahay in badan aan lahayn hooy ay seexdaan ogow waxaad ogaataa wax waliba adiga aad haysato ee gacanta kugu jiro qof inuu raadinayo inuu u tahay riyadiisa qof walba wuxuu haysto ha ku qanacsanaado waa sax in wax kale aad raadiso laakiin ku qanacsanow shayga markaas aad haysato waayo waxaad adiga haysato dad ayay riyo la tahay inay helaan waad ku mahadsantihiin